nabadda wada waa mar kaliya barnaamijka xiisaha badnaa ee dhacdooyinka adduunyada maalinba qormo xiiso badan ayaa ku daawataan oo qosolkeediya waayaheedaba leh maantana waxaanu idinku haynaa madaxweynaha waddanka Kenya Mwai Kibaki oo waqti uu ku jiro doorasho aad u kulul yahay oo ka dhacaysa hadda waddanka Kenya dhammaan ay ku tartamayaan xisbiyo kala duwan oo iska soo horjeeda uu kaga dhacay surwaalku goob fagaara oo kula hadlayay malaayiin qof madaxweynaha Kenya ayaa markii uu ka dhacay surwaalku madasha uu kala hadlayay dadka faraha badan leh waxay ka yaabisay boqolaal kun oo qof oo dadkii daawanaya iyo boqolaal kun oo kale oo ka daawaday telefishinada madaxweynaha Kenya oo ku jira waqtigan doorasho aad u kulul ayaa ilaabay ka hor intuusan iman madasha inuu adkaysto surwaalkiisa qaar ka mid ah askarta ilaalada ayaa isku dayay inay soo taagaan kamarada waqti madaxweynuhu xidhanayay oo la tacaalayay qabashada surwaalkiisa oo hoos u sii dhacayay ayeeshee waxba ma suuro gelin inay qarsoonto madaxweynaha ayaa la arkayay isagoo qoslaya waqti uu ka siibtay surwaalku kadibna waxaa gadaal dambe ka soo kacay mid ka mid ah askartiisa ilaalada oo madaxweynaha u xidhay surwaalka madaxweynaha Kenya ayaa waqtigan ay ku jirtaa sida dad badan qabaan xaalad adag oo ka mid ah xaaladaha ugu adkaayay oo abad soo wajaa isagoo kala dooranaya siyaasiyiin fara badan oo ay waayo badan saaxiib ahaayeen kuwa ay ku jiraan xisbiye iyo kuwa iska soo horjeedaan oo laga yaabo inay ka taliyaan mustaqbalka 5 sano ee soo socda waddanka Kenya beesha caalamka ayaa indho kulul ku eegaysa doorashada Kenya oo looga shaki qabo inay soo baxaan kooxo ku jira ama ay raadinayso maxkamadda caalamiga Hague kuwaas oo lagu eedeynayay in doorashadii sanadadii laga soo gudbay dhacday waddanka Kenya ay geysteen xadgudubyo ka dhan bini'aadamka muuqaalkan haddaba intii uu ku jiray ololaha doorashada Mwai Kibaki uu kaga dhacay surwaalku madasha uu boqolaalka kun kula hadlayay ayaa muujinaya si uusan madaxweynuhu habeen iyo maalintoona ugu seexan amba uusan ugu naminay amba uusan u gamanarahdeen niyad sami madaxweynaha Kenya Mwai Kibaki ayaa hadda u taagnayn raahday isagu doorashada tar madaxtinimo ee waddanka Kenya balse waxa laga yaabaa inuu taageerayo mid ka mid ah xisbiyada waddankan laga yaabo inay hogaamiyaan iyadoo inta badan loo badinayo inuu taageerayo wiilka uu dhalay madaxweynaha hore waddanka Kenya Uhuru barnaamijka oo aad ku soo qaadanay dhacdooyinka toddobaadka la daawado dhageystay waxaad markasta iyo waqti kastaba nagala soo xiriiri kartaa markaad booqato shabakadeenna Somaliland Live Media emailada ama qaybta contactiga Somaliland Live Media adigoo sidoo kale nagala socon kara bogga qaybtaan ku leenahay Facebook ee Somaliland Live Media waxaad taabsanaysaa qaybta like si aad noola socoto ama aad ugu soo biirto asxaabteena meel kasta iyo goob kasta oo caalamka aad nagala socoto waxaan ku rajaynaynaa waqti fiican ee waa barnaamijkii dhacdooyinka adduunyada waxaa barnaamijkana soo diyaariyay soo duubay wariyahayga magaalada Kiyaanada mariyahayna